magacdaray jaceylkii aaska. Gabar waxay joogtay aaska hooyadeed waxayna la kulantay nin aad u wanaagsan oo aynan aqoon u lahayn. Si kadis ayay ku kulmeen balse waxay ku mashquulsaneed aaska mana haysan waqti ay ku weydiiso lambarkiisa ka hor inta uusan bixin. Waxay runtii isku dayday inay si hoose ula socoto laakiin cidina ma oga qofka uu yahay ama sida loola xiriiro. Dhowr maalmood kadib walaasheed ayaa dhimatay, booliskuna waxay ku tuhmeen inuu yahay yaa dilay walaasheed. Ka fikir jawaabta, waxaad haysataa 15 ilbiriqsi. jawaabta waxay dishay walaasheed. waxay rajaynaysay in haddii qof kale oo ka mid ah qoyskeeda uu dhinto, ninkii ay la kulantay aaska hooyadeed uu dib u soo laaban doono mar labaad. waa hal xiraale kale oo ku saabsan faraanti la xaday. haweeney waxay u tagtay booliska si ay u sheegto in tuug u soo dhacay gurigeeda kadibna uu qaatay faraantigeedii. markii booliska ay yimaadeen gurigii waxay arkeen daaqada la jibiyey. gudaha ayaa guud ahaanba wasaqaysneed waxaana ka muuqday rooga raad wasaq ah laakiin ma jirin astaamo kale oo jabitaan. maalintii xigtay booliska waxay xireen haweeneydii sababo been abuur iyo musuqmaasuq. haddaba sidee ku ogaadeen booliska? ka jawaab, waxaad haysataa 15 ilbiriqsi. jawaabta isla markii ay booliska yimaadeen goobta dembiga waxay ogaayeen in haweeneydu ay u badan tahay inay abaabushay jabinta daaqada, sababtoo ah daaqada jaban dhammaan dhalooyinka ama quraaradaha ayaa daadsanaa banaanka guriga, taasoo la micno ah in daaqada laga jibiyey gudaha. waa hal xiraalihii lixaad kuna saabsan tuugii badda. markab laga leeyahay wadankeena Soomaaliya ayaa ka baxay tekada wuxuuna kusii jeeday dhanka badda. kabtanka lagu magacaabo Daadiryare ayaa u baxay inuu saliid ka soo qaato qayb ka mid ah markabka. wuxuu ugu tagay miiska dhinaciisa dambe saacad qaali ah sababtoo ah ma uusan doonaynin in waxyeelo ka soo gaarto. markuu dib u soo laabtay ayuu waayay wuxuuna ka shakiyay 3 ka mid ah shaqaalaha markabka. waxa uu weydiiyey waxa ay qabanayeen 10kii daqiiqo ee uu maqnaa. cunto karihii ayaa yiri waxaan ku jiray jikada anigoo diyaarinaya cashada caawa. injineerku wuxuu yiri waxaan ka shaqaynayay qolka matoorka, waxaan hubinayay in wax waliba ay si hagaagsan u socdaan. ninkii saddexaad ayaa yiri waxaan aaday markabka korkiisa si aan u hagaajiyo calanka maxaa yeelay qof ayaa si qaldan u suray. kabtankii ayaa markiiba ogaaday cidda ay ahayd tuuga. haddaba sidee? waxaad haysataa 15 ilbiriqsi. jawaabtu way iska caddahay sababtoo ah calanka Soomaaliga waa buluug oo dhexda ku leh xidig cadaan ah. si kastaba oo aad u surto qalad ama sax isma bedelo. tusaale sida sawirka qofka madaxiisa hoos la geeyay lugihiisana kor loo qaaday. intaas ayaan ku soo koobayaa. la soco qeybaha dambe haddii aad ku aragto halxiraalahan magacyada Ismahaan, Ilhaan, Daadir. aniga ayaa jeclaystay in aan ka dhigo maadaama halxiraaluhu uu ahaa luuqadda Ingiriisiga si uu halxiraaluhu u noqdo mid fudud oo la fahmi karo sheeko ahaan. haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe saar mahadsanid.